Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa laga yaabaa inaad ku dhiban tahay qaabkaad u heli lahayd literature review dhammaystiran markaad tahay arday jaamacad ku jira oo qoraya thesis-kiisa ama dissertation-kiisa. Hadda waxaa la isticmaali jiray Google Scholar. Google Scholar waxaa loo adeegsan jiray inuu yahay mid ka mid ah soorsiyada ugu badan ama meelaha database-ka ugu badan ee ay ku jiraan millions of articles oo peer reviewed ah oo published ah. Anaad ka soo heli karaysa si fudud adigana aad u adeegsan karaysa literature-kaaga. Marka maanta Google-ku waxay sameeyeen update-kii ugu weynaa oo ay ku soo kordhiyeen Google Scholar. Google Scholar waxay ku soo kordhiyeen qayb AI ah, qaybtaasi oo artificial intelligence-ka kaasoo kaa caawinaya inaad si fudud ku hesho literature review kugu filan adigana ka anfacaya. Si fududna waa aad ku identify garayn kartaa ama waad ku garan kartaa waxa adigu aad raadinayso literature-kii la xidhiidhay si fudud baad ku soo heli kartaa. Bal aynu isla aragno marka koowaad. Marka koowaad aad Google aad tagto waxaad ku qortaa Google Scholar. Google kadibna waxaad ku dhufan doontaa search. Linkigan u horeeya marka ayaad ku dhufan doontaa Google Scholar-ka. Markaad saa ugu dhufato awal waxaa jirtay in la isticmaali jiray keywords-ka oo macnaha keywords-ka kugu jira ama ereyada furaha u ah research-gaaga ayaad ku qori jirtay. Like for example livelihood oo kale inaad qorto livelihood, let's say diversification oo kale inaad qorto, then aad searching garayso. Qaabkan markuu kugu soo baxo livelihood diversification ee research-kaaga aad baadhanayso inaad kolba linki furto. Kuwa ugu inta badan qaabka advanced-ka u isticmaalayna waxay samayn jireen inay qaybtan ay tagaan oo qaybtan ay maxay sameeyaan sanadaha ay doortaan timeska. Let's say for example 2021 wixii ka soo dambeeyay research-yadii laga qoray livelihood diversification si inuu yiraahdo sort by inaan isticmaali karto by date ko kale aad kadib isticmaali karto oo latest-gii aan isticmaali karto 2 days ago ba kan imika la soo geliyay kanoo kale imika let's say for example 2 days ago. Marka waxaa la isticmaali jiray qaab noocaas oo kale laakiin hadda Google Scholar aad ba loo update gareeyay waxa lagu soo daray qayb AI ah ayaa lagu soo daray. Qaybta haddaba sidaad u isticmaalayso ma sheegana. Halkan maxaad ku aragtaan a new way to search. Waa maxay? Waa try Google Scholar research. Marka halkan aad click siin markaad ku dhufato waxa kuu soo bixi doona interface noocan ah. Macnaha waa AI aad kaliya weydiinayso oo aad ku qorayso kaliya ask detailed research question to find papers. Papero la xiriira research-gaaga waxa aad ka shaqeynayso ama cilmi-baadhista aad qorayso ayaa aad gelin kartaa maxay research questions-kiisa. Let's say for example hadda tusaale ahaan waxaad gelin doontaa bartan aad ku qori doontaa. Bartan markaad ku qorto waxaad ku dhufan doontaa submit wuxuu ku siin doonaa marka detail. Tusaale ahaan aniga hal arday aanu ahaa advisor baynu soo qaadan doonaa bal hadda research questions-kiisa mid ka mid ah. Markaan soo koobiyeyno research question-kan koobi baan odhan waxaan tegi doonaa Google Scholar-kayga waxaan ku dhufan doonaa qaybtan aan gelin doonaa. Tusaale ahaan waxaan odhanaa how does the milk trade contribute livelihood of the livelihoods of the households in Somali region. Let's say for example tusaale ahaan tanaynu ku dhufanayna submit baan odhan waxay isku dayi doonaa inuu millions of research articles published oo la soo geliyay Google Scholar-ka inuu soo baaro. Hadda waa hadda Google Scholar wuxuu kuu soo helay research article-ladii u dambeeyay kuwaasoo weliba inta badan la xiriiraya maxay waxa aad wax ka qorayso research questions-kaaga. Hadda maxaan qornay milk trade-ka iminka muxuu halkan qoray community individualization of a milk in Somali region. Macnaha oo waliba PDF-kiisa aad heli karto laakiin inagu ma socono PDF-kaas loola dego dadku si fiican baad u taqaanaan laakiin meeshaan u dan leeyahay waxa weeye qaybtan hadda halkan maxaa ku qoran xilligii la publish gareeyay ayuu soo saaraya waliba database-ka lagu publish gareeyo ama journal-ka lagu publish gareeyo oo weli online ah oo Scopus ah waliba Web of Science iyo journal-lada ugu awooda badanna ku jira. Hadda dadalkan tagtaan qayb lagu soo kordhiyay la yiraahdo maxay explanation ama summary oo kooban ku siinayso this paper waxa ay ka hadlayso. Kii hore ma uusan lahayn markaad search intaad ku qorayso. Marka Google Scholar Lab waxa lagu soo daray maxay qayb kuu sahlaysa inaad fahanto waxa uu ku qoran yahay. Waxaan u jeedaa inaad si fiican aad u taqaano aad si fiican u garan karto adigoona siiba dhex gelin
waxa researchigani uu ka hadlayo. Tusaale ahaan imika towns, camels and milky village, the growth of milky camel market in Somali region. Imika tusaale ahaan kan muxuu ka hadlaya women income generationka, like for example livelihood diversification baa ku jirta. Waxa qoray researchigan oo lagu daabacay 2013 buu ahaa library open organization. macnaha researchiga si good information dhammaystiran baad ka heli. Research questionska marka adoo isticmaalaya ayaad waxaad heli literature dhammaystiran. Marka waxaan odhan lahaa laga faa'iidaysto hana loo isticmaalo AI-gan cusub ee ay shirkadda Google ay ku soo kordhisay adigoo isticmaalaya. Marka Google Scholar haddaanad si fiican inaad u aqoonin inta badan qaabka loo isticmaalo YouTube-kaad ka baran kartaa. Haddii loo baahdana waxaan isku day inaan muuqaal kale oo kan ku xiga qaabka loo isticmaalo ama literature-ka loo baadho Google Scholar. Laakiin update-kan baan jeclaystay bal inaan hadda aan idin siiyo dad badan oo macnaha ila soo xiriirin ay weydiinayeen su'aalaha literature baana lagu dhibay, source seen ku heli karnaa, reference-yada qaarkood baa naga maqan, ama manuscript-yada ama article-lada aan hayno, bla bla. macnaha inay sheegayaan cabashooyin noocaas kan adigoo isticmaalaya. Marka waxaad Google Scholar Labs-ka adoo isticmaalaya waxaad heli kartaa source weliba credible ah oo lagu kalsoonaan karo iyaad heli kartaa. Marka AI-gan aad buu fiican yahay, aynu ka faa'iidaysano. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.